Asalaamu calaykum. Mar kale xiisadii u dhaxaysay Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii Imaaraadku qaaday tallaabo ka caraysiisay Mohammed bin Salman. Haddaba maxay tahay tallaabadaasi? Saameyn intee leeg ay yeelan kartaa? Maxaa ka dhalan karaya mustaqbalka cilaaqada labada dhinacse maxay noqon doontaa? Sidoo kale Shiinaha oo mar kale gudaha u galay hay'ado ka tirsan Mareykanka isla markaana aad iyo aad walwal iyo culays Mareykanku uga dareemayo xogta iyo waliba sheekooyinka aan caadiga ahayn ee Shiinuhu uu ka arurinayo hay'adaha Mareykanka markaasi. Waxaan ku hayaa warbixin dheer iyo waliba xiisad u dhaxaysa Mareykanka iyo Shiinaha oo maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaysa. Cutub cusub ayaa la sheegay inay howlgal ka fuliyeen gudaha Mareykanka. Shiinuhu wuxuu marayaa markan in tallaabooyin heerkaas uu qaado. Tabintan ayaan kugu hayaa isla markaana kugu soo gudbin doonaa. Waa tabinteena labaad oo maalinimo Jimcaha 28 bisha Agoosto sanadka 2026. Channelka subscribe saaro, muuqaalka like ku dhiirigeli. Mahadsanid saaxiibayaal. Aanu ku bilownay. Waxa sii kordhaysa xiisad u dhaxaysa Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Arabiya, iyadoo sababta ugu weyn ee xiisadan ay tahay fariin uu diray madaxweynaha Imaaraadka Carabta Mohammed bin Zayed, kaas oo fariintan toos ugu diray qof aan ahayn dhaxal sugaha dalka Sacuudiga Mohammed bin Salman. Ma u dirin ninkii caadi loogu diri jiray oo dunidoo dhan ay kala hadli jirtay waxa quseeya Sacuudi Arabiya, laakiin fariintan waxa uu toos ugu diray boqorka dalka Sacuudiga Boqor Salman bin Abdulaziz oo ah aabaha dhalay Mohammed bin Salman, taasi oo ka caraysiisay bin Salman. Marka la eego warbixin ayaa lagu daabacay Middle East Economic Digest oo mid loo soo gaabiyo, waxaana ay sheegayaan diblomaasiyiin Mareykan iyo kuwa Carbeed inay eegeen tallaabada Imaaraadka Carabta ay u qaaday marka la eego xiisadda inay sii kordhiso markaasi. Carabtu iyo waliba Mareykanka khubaradoodu waxay ku fasirayaan Imaaraadku hadda inuu doonayo inuu ka tallaabo xayndaabka Mohammed bin Salman. Laakiin su'aasha la isweydiinayo maxay tahay waxa dhab ahaantii ay sameeyeen Imaaraatiyiintu? Fariin ayaa waxaa ku jirta casuumaad rasmi ah oo Boqor Salman toos loogu fidinayo casuumaadaasi shirweynaha biyaha ee qaramada midoobay ee 2026 uu ka soo qayb galo, kaasoo lagu qabanayo magaalada Abu Dhabi marka la gaaro bisha December ee dhamaadka sanadkan. Fariintan Abu Dhabi waxaa gudbiyay safiirka Imaaraadka ee dalka Sacuudiga Matar Salim Al-Dhahiri, halka uu ka gudoomay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Sacuudiga Walid Al-Khurayji. Ninkan ayaa loo sheegay in dhambaalkan uu ka socdo madaxweynaha Imaaraadka una ku socdo madaxweynaha dalkaasi Sacuudiga ama ninka u dhigma ee boqorka dalka Sacuudiga Boqor Salman. Marka aad fiirisid Sacuudiga iyo wax walba ku saabsan waqti xaadirkan, caalamku wuxuu kala hadlaa Mohammed bin Salman. Tani ayaa la isweydiiyay maxay tahay sababta dhambaalka lagu qori waayo bin Salman iyo waliba in lagu qoro Mohammed waa markaa Salman bin Abdulaziz oo aabaha wiilkan. Aabihii muddo dheer lama arag, shir rasmi oo ka qayb galo waxa ugu dambeysay sanadkii 2019, waqtigaas hadda 7 sano ka badan la tilmaamayo xaaladiisa caafimaad inta badan aysan deganayn, howlgallada dibaddana amaba marka la eego shirarka dibaddana inta badan wasaaradda arrimaha dibadda ama dhaxal sugaha ayaa ka qayb gala. Inkastoo casuumaadan si rasmi ah ula xiriirtay shirweyne caalami ah, haddana qaar ka mid ah diblomaasiyiinta reer galbeedka iyo Carabtu waxay u arkaan fasir siyaasadeed oo toos ah oo lagu fasirayo inay ku socoto dhambaalkan hoggaanka Sacuudiga. Boqor Salman waa sidaan kuu sheegay 90 jir. Muddo dheer waxaa loo arkaa in uu isagu markaasi ahaa qof aan shaqadiisa sidii loogu talagalay u gudan karin markaa. Sidaas daraaddeed howsha dhan waxaa waday Mohammed bin Salman oo ah hogaamiyaha dhabta ah marka la eego Sacuudiga, isagoo maamula dhammaan hay'adaha dowladda, siyaasadda iyo amnigaba markaasi. Warbixintu waxay sheegtay xitaa xiriirka Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta inuu muddo ahaa mid aad u dhow ama mid xumaadayba already markaasi, waayo dabeeqadii sanadkii hore wixii ka dambeeyay wax walba way isbedeleen, gaar ahaan xiisadii u dhaxaysay dhinacyadan
ee ka dhalatay Yemen iyo weliba Suudaan. Labada dal ayaa isku khilaafay kooxaha ay kala taageerayaan. Sacuudiga iyo Imaaraadku way ku kala aragti duwan yihiin kiisas badan marka la eego dagaalada kooxaha gudaha Yemen iyo weliba Suudaan. Xitaa markaad fiirisid geeska Afrika iyo Soomaaliya waad arkaysid Sacuudiga inuu u dhowaanayo dowladda Muqdisho ee dowladda federaalka, halka maamulka Hargeysa ee maamulka Somaliland uu isagu aad iyo aad markaasi uu garab istaagayo Imaaraatiyiintu. Sidaas daraadeed dhinacyadan aad bay u kala fog yihiin, aad bayna isugu khilaafayaan marka la eego xiisadaha dhinacyadooda. Arrinta ugu daran waxay tahay qorshayaal dhowr ah oo saraakiil Maraykan ay ku tegi lahaayeen Imaaraadka ayaa fashilmay, isla markaana xitaa la isku dayay in lagu dhexdhexaadiyo Riyaad iyo Abu Dhabi. Laakiin dagaalkii u dhaxeeyay Maraykanka iyo Israa'iil iyo Iiraan wuxuu muddo kooban isu soo dhaweeyay Imaaraadka, Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga, balse ma ahayn isbahaysigan mid sii jiray markaas. Sacuudigu wuxuu bilaabay inuu taageero dhexdhexaadinta Pakistan hormuudda ka tahay, halka Imaaraatiyiintu isku dayeen iyaguna in saameyn ay ku yeeshaan jihadaasi. Kadibna waxaa dhashay isbahaysiga Sacuudiga, Turkiga iyo Pakistan, kaasoo loo arkayo qaab dhismeed amni cusub oo gobolka. Qaar ka mid ah falanqeeyayaasha ayaa isbahaysigan u arkaa mid aan markaasi wax badan samayn karin, walow kuwo kale u arkaan inuu noqon karo miisaan cusub oo ka duwan xiriirka u dhexeeya Israa'iil, Imaaraadka iyo weliba India. La taliyaha Mohammed bin Zayed Cabdilkhaliq Cabdallah wuxuu sheegay in isbahaysi kasta loo baahan yahay inuu aqoonsado cadowgiisa. Yacni idinku Sacuudiga iyo Pakistan iyo Turkigu waxaad dhisteen markaasi isbahaysi diyaad cadaawad markaasi iyo idinkala dhexaysa cadaawadu waa kuma cidaad ishaysaan, taasoo ku tusinaysa in markaasi inta aan la gaarin Israa'iil iyo cid kale in Imaaraadku u arkayo in isaga cidda loo socdo ay tahay markaasi. Geesta kale Mohammed bin Salman ayaa fariin u diray ayaa la yiri Bahnoon bin Zayed waa walaalka isla markaana madaxa sirdoonka dowladda oo dhan ba markaasi ninka haya, isaga oo u gudbinaya walaaca Riyaad ee ku saabsan siyaasadda Imaaraadka ee Yemen iyo weliba Suudaan. Mohammed bin Salman ayaa markaasi isaguna soo jeediyay wadahadallada lagu maareeyo janalka rasmiga ah ee markaasi uu hogaamiyo walaalkii Khalid bin Salman waa wasiirka difaaca. Dhanka diblomaasiyadda inaan laga fogaan ayuu qabay Sacuudiga markaasi. Marka aad eegtid Imaaraadku wuxuu xiriir wanaagsan ay kala dhaxaysaa markaasi dowlado badan, laakiin sidoo kale waxaa jira garabyo uu taageero Yemen oo kale, Suudaan oo kale, xiriirkiisa Israa'iil waana waxa madaxa xanuujinaya Sacuudiga iyo weliba xiriirkan. Yemen oo kale markaad eegtid waxaa lagu eedeeyay inay taageeraan kooxaha gooni-goosadka. Suudaan oo kale waxaa lagu eedeeyay taageero inay siiyaan kooxaha ku lug lahaa dagaalo sokeeye uu ugu horeeyo Maxamed Hamdan Dagalo Himiti. iyo weliba markaad eegtid xiriirka Israa'iil dabcan iskuma dheelitirna marka la eego dhinacyadan siday isu hayaan iyo weliba xiriirada wadamada ay leeyihiin. Laakiin Professor Andreas Kirk oo ka tirsan King's College London ayaa wuxuu sheegay Mohammed bin Zayed si toos ah ugu tagay ama u gaaray meesha ugu sareysa ee hoggaanka Sacuudiga. Fariintana waxay muujinaysaa yiri inuu dhaafay ama uu iska indhatirayo boqorka ficiliga ama ninka si dhab ahaan u maamula Sacuudiga, Mohammed bin Salman. Aragti kale ayaa jirta xiisadu way sii kordhaysaa, waxaana professorkan uu qabaa dhinacyadu in tallaabadan aysan isu soo dhaweynaynin, balse ay noqonayso mid xiisada kaga sii darta meel hadda markaasi joogto meel ka sareysana gaarsiin karta. Dhinacyadan ayaa iyadoo aysan ka heshiinin Yemen, South Sudan waa wadanka Suudaan iyo weliba Israa'iil xiriirkoodu way adag tahay baa leeyahay inay isu soo dhawaadaan. Haddii aan u gudubno xiisada kale u dhaxaysa Mareykanka iyo Shiinaha maalinba maalinta ka dambaysa waxay u muuqataa inay sii kordhayso. Labada quwadood waa laba quwadood oo ku loolamaya saameyn siyaasadeed, awood dhaqaale iyo mid tiknoolajiyadeed. Khilaafku maaha kaliya dagaal ganacsi, balse wuxuu hadda gaaray dhinacyo ay ka mid yihiin suuqyada shidaalka, macdanta naadirka, sirdoonka macmalka AI-ga iyo weliba awoodda tiknoolajiyadda. Cutubka cusub ee xiisada amaba markaad eegtid
tallaabo ay qaadeen marka la eego Shiineysku ayaa aad uga caraysiisay Mareykanka, iyadoo Mareykanka iyo Shiinuhu markaasi eedeymo isu jeedinayaan. Ayaa eedeyntii ugu dambeysay waxay ka timid Washington. Waxaa lagu eedeeyay Shiinaha in weeraro dhanka cyberka ah lagu bartilmaameedsanayo hay'ado iyo weliba shirkado muhiim ah laga fuliyo gudaha Mareykanka oo Shiinuhu markaasi uu isagu fuliyay markaa. Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay inuu carqaladeeyay weerar cyber oo la xiriirinayo kooxo Shiineys ah, kaasoo lagu sheegay inuu markaa loo adeegsanayay 2 madal oo markaasi ay ahaayeen in lagu jabsado Qscan iyo weliba Qt router. Waaxda amniga gudaha ee Mareykanka waxay sheegeen in aaladahaasi loo adeegsaday in lagu weeraro kaabayaasha muhiimka ah ee Mareykanka. Sheekada kale ee xiisaha leh waxay tahay dowladda waddankaasi Shiinaha ayaa waxaa iyaduna waqtiyadii ugu dambeeyay cunaqabataymo lagu markaasi soo rogay oo Mareykanka dhankiisa kaga imaanayay kooxo ay ku eedeysay Washington inay taageerto dowladda waddankaasi Shiinaha. Waxaa jira NASA, Bangiga Dhexe Mareykanka ee Federaalka, Wasaaradda Tamarta, Wasaaradda Cadaaladda, Wasaaradda Caafimaadka iyo Adeegga Aadanaha, National Institute of Health, Aqalka Sanadka. Inta waxaa la sheegay in la bartilmaameedsaday oo kooxo Shiineys ah iyagoo ay bartilmaameedsadeen oo ay doonayeen inay jabsadaan. Dukumentiyada maxkamadaha Mareykanka ayaa muujinaya qaar ka mid ah weeraradaasi si dhab ah in loogu guuleystay, taasoo kordhisay walaaca Washington. Mareykanku waxaa sidoo kale hadda in ilaa 2023 uu waday Shiinaha ay ogaadeen tallaabooyinka weerarada lagu qaadayo shabakadaha, haddii ay noqon lahayn gaadiidka militariga, xarumaha sifaynta biyaha, warshadaha tamarta. Washington ayaa ka cabsi qabta awoodaha noocan loo isticmaali karo in lagu cuuriyaamiyo kaabayaasha Mareykanka haddii uu dagaal ka qarxo Taiwan. Bishii May 2024, koox QTFY la yiraahdo ayaa la sheegay inay ka faa'iideysatay cilad amni oo ay ku weerartay shirkadaha oo markaasi lagu weeraray shirkadaha isgaarsiinta. Weerarada ayaa la sheegay inay saameyn ku yeeshteen xogta siyaasiyiin Mareykana ay ku jiraan madaxweyne Donald Trump iyo weliba ku-xigeenkiisa JD Vance. Kooxaha ayaa lagu eedeeyay inay urursadeen xog ka badan ilaa 300 oo hay'adood oo gudaha iyo dibadda Mareykanka, kuwaas oo ku jiraan shirkadaha difaaca, hay'adaha maaliyadaha, jaamacado. Xiisadda cyberka ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli madaxweyne Xi Jinping uu isagu booqasho ku tagayo Washington qiyaastii bil kadib waqtigan markaad fiirisid. Guud ahaan tibintayadu waa naga intaa. Channelka subscribe saaro meel kasta oo aad joogtaan, muuqaalka like ku dhiirigeliya. Mahadsanidin.